dabkan ka ololaya saxaraha waddankan ku yaala bartamaha qaaradda Asia waxa uu daaran yahay wax ka badan 50 sano oo cimri ah. Waa god aad u weyn oo kulansaday dab iyo holac aan damin muddo 50 sano ah, waxaana loogu magac daray albaabka Jaxiima. Maxay tahay sababta loogu magac daray albaabka Jaxiima? Siduu ku bilowday dabkan? Maxaase loo damin la'yahay ilaa imikan? Halkan waa waddanka Turkmenistan ee ku yaala bartamaha qaaradda Asia. Saxaraha dalkan Turkmenistan waxaa ka taagan musiibo in ka badan 50 sano. Godkan aadka u weyn ee dabka uu ka daaran yahay waxa qaati ka taagan dawladda Turkmenistan iyo dadweynaha oo wax badan ku hawshooday sida ay u damin lahaayeen. Markii ugu horeysay waxa la aaminsan yahay in uu ku bilowday si kadis ah oo aan ku talagal ahayn. Midowgii Soofiyeed oo markaasi ka arriminayay waddankan ayaa isku dayay in uu halkani ka qodo shidaal maadaama dhulkan uu qani ku yahay gaaska dabiiciga ah. Sanadku waxa uu ahaa 1971 kolkaasoo la doonayay in laga faa'iideysto khayraadka dhex eegaaga saxaraha Turkmenistan. Si kasta oo ay ahaataba waa lagu guuldareystay qodistii shidaalka, waxaana halkaasi ka burqaday godkan holcaya inkastoo uusan markaasi sidan u buurneen. 10 sano kadib ayaa lagu baraarugay godkan iyo halista uu leeyahay, iyadoo markaasi uu isqabsaday holaca dhammaan darfaha godka. Si kasta oo la isugu dayay in la damiyo, waa la awoodi waayay, waxaana loo bixiyay albaabka Jaxiima. Kuleelka daran ee ka soo baxaya dabkan iyo muddada fog ee uu daaran yahay ayaa sababtay in loogu magac daro The Door of Hell ama albaabka naarta.